السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا نعيمة إن أديت بدني سلامي وحكيها دلنيرده إن وحوية ساكورت وحنسوق على هالكن إن الرينيرو مهم أو مقرن سعي حالي بقى وحنرك سوشيال ميديا حلو حيست إنه كيدو البهانتي اللي قد لما دايرة طبعا كسنة يكبر حدنا أيه هيستي نمانكي داراده حاد ذي شي نعله يقال بدل أنا تذكرين إن كابتن يعقوب وحويان ninkaas maanta garab idin ka baahna wad ka seexateen maanta garab idin ka baahna wad ka saaxateen laakiin waxa calool xumo ah oo calool xumo da ugu weyn ay tahay inaad maanta marka uu dhintay oo lagu fiiriyay dilka idinku awooda inaad magti ka bixisaan dhulbahanta wixii waa basal qunto nagu dhex jirta basal qunto haduu yahay idinku maad ka bixisaan daarood baan nahay kanaanu nahay war daarood dhiig ma laha dadku wada ogi dhiig ma laha wallaahi inaanu dhiig lahayn tallaahi dhiig lahayn sababtoo ah ninka cid bagti ka bixisay lama waayo daarood Afrika iyo Asia iyo Aasiya meel kasta uu jooga waxa weeyaan reerka kaliya Soomaali ugu badani runta marka laga hadlayo waa daarood Ismaaciil Soomaali ugu badani laakiin haddana reerka ugu tayada xumi waa daarood Ismaaciil reerka aan dhiig lahayn waa daarood Ismaaciil waxa weeyaan ninkan haddii magti tulki ka bixin waayay oo dhulbahanta awalba aayamuu lahayn idinka oo le daaro Ismaaciil baan ho kanaan ho keeraan maad ka bixisaan anigu xalay bay igu horeysay iyo fiidiyowgiisa aan daawaday in hore uma daawan anigu waxa weeyaan xalay bay igu horeysay runtii aad baan uga naxay TV-gan ka daawaday 6 nin oo la toogtay oo lama soo dhigin sawiradoodii laakiin 6 nin inay la toogtay oo dhiig dad ay dileen ayaan daawaday ninkaasna 6 nin buu ku jiray waxaa tirahdeen isaaq baa dilay isaaq ma dilna idinka dilay haddii labadii reer isku baabi'i lahaayeen ilaa magtiina waa tan la diiday labadii reer baa la kala badbaadiyay ninkan waxa la nin buu dilay anagu ma ogin de ilaahay baa og ma garanaysaa laakiinse ninku hadduu soo calaalay calool xumada maanta Facebook taala social media taala idinka ka mas'uul daaroodo nin daarooda iyo naag daarooda oo maanta laandheeraanahay horta laandheero ha iga hadho laandheero ma jiro wax laandheero leeyahay laandheero waa kee markaa laandheero waxa weeyaan ka marka taladu cuslaato wax walba saa u kala gooya kaasa laandheero la yiraahdaa shiina culayo naxnaxdaas oo shiina culayo markii hore ka hadli lahayd arrintan laakiin maaha maanta qofka markuu la dilo inaad ka hadashay arrin xaq ah waana lagu dilay sababta adeenin buu dilay anagu ma hubno de sidii la lahaa ninkan haddii aanu wax dilin de intaasoo dhan lama haysteen laakiin daarood Ismaaciil haddaad tihiin waad gumowdeen ninkaasi maanta doo odhan lahayaa Soomaaliyey dad badan oo Soomaalida dhiig laba ku jira dad badan baa u kici lahaa laakiin reerkii shaambu xayraanka ahaa daarood Ismaaciil markuu yiri tallaayaa daarooda way ka fadhiisteen marka maanta ma dhuumataan maanta maxaa ka soo hadlaysaa wadiga social soo fadhiyay kana toogtay de inaadeerkii buu isagu toogtay isagana inaadeerkii baa toogtay oo yiri halay dilo dadku waa reer labada reer waa la kala badbaaday waa isku maran lahaa labada reer maanta inaad soo hadashaan hadal idiima furnaa waa inaad dhuumataan kayra kabtan ayuub leeyahay ayaa daawanayo ka hadlayay kayra majarteena kabtan ayuub leeyahay wuxuu yiri maxaa dhulbahanta waxa weeyaan basal quruntan ugu dhex jirta haday basal tahay ama ayaanya tahay idinku maxaa tihiin ma idinka dhaama hada idinku maad ka bixisaan hada dadtii waris ma dhaataan idinku daarood waxa weeyaan daarood baa meel kasta ceebtiisa taala islaanta xiranaysa social media ku jirta waa daaro isqaawinaysa waa daaro balaayada sameynaysa waa daaro waxba sameynaysa waa daaro ninka khaniiska waa daaro ma soo qabsataan ninka khaliiska waa daarood markaas daarood baa meel soo fariisanaysa waxa soo dhimay ninkaas kaga takhalusi lahayd naf leedahay meel kasta waad joogtaa nin boqol halaad bixin kari weeyay bal wakaas qof kaliya daaroodo maanta ka bacdi waxaan ku laandheero sheeganaya ama meel ka soo naxnaqlaan arko wallaahi billahi tallahi waxa way wad gumowdeen kunimeydi ma hadhi ma jirto
dhiigna ma lihidin laakiin waxaad ka adeegtiin nacnacda ayaad ka adeegtiin hadduu ninkaas ololayaa Soomaali weyna calool xumada maanta taala social media bal hadduu iska dhiman lahaay oo aanan daawan lahayn wax dhan bay ahaan lahaay laakiin waxaan ka naxay ninka meesha ka barooranay aan ka naxay waraanu siyaasad waxba kama aqaano ina yar baan ahaa siyaasad waxba ka garanay waxa la ninkan ilaa wuxuu xanaa dawladda riyaalana markuu haystaan uu ina yar babyana waxa maan garanay tiisi ilaayna ma maqal tana de xalay baan ka daawaday waxa ka daawaday TV-ga 6 nin la dilay sawirradooda lama soo saarin laakiin 6 nin in dil lagu fuliyay oo gacan ku dhiiglayaala ninkaana qabiil looma dilin qabiilkiisa dilay حوين دولة سومالي لو كم حبنان تهاي ده شرعي بدلي من قفتي دلاني دين هنا بنايسي حسي لكن هدي مقلة أقلا وحي هاد مقت إن لقب بحيانك أي أهيد أنت هاد مقتي بقول حلال وما جيسك بحين كرويدي يعني ميرت فرستي تارود بان هاي لاندير أنا هاي كان أنا هاي كيران هاي أدير ما هدي ما تود عيبودين تي أي بدين هداي ما شفتو cid kastana way aragtaa boqol haad iska bixin kari weydaan nin boqol haad iska bixin kari waayay reer idil oo Afrika iyo Asia America iyo Europa meel kasta degaa boqol haad iska bixin kari waayay taasi micnaheedu waxay ku tusaysaa qof walba inuu Ilaahay u maqan yahay qofkii taajir naftiisu taajir yahay kii faqiir naftiisu faqiir yahay kii wax haysta naftiisu wax haysta kii mutacallim naftiisu mutacallim yahay kii jaahil naftiisu jaahil yahay waxa weeyaan ciidina waxaan leeyahay qof walowba naftaada ayun baad wuxuu tahay laakiin qabiil waxa ma taray awal baan ugu wanaagsan qabiilnaan waxba tarin ilaa hadda waan aaminsanahay laakiin sidaaroodka waxaan mooday inta inay dhaamaan sababtoo hadalka meesha la dhigay calool xumo ay qof walba ku riday qof kasta daaro Ismaaciila oo dhageysta wallahi calooshu hurinaya waxaan ahay dhulbahante waxaan ahay beesha daarood in hebelow danayo miniminiyo kii kalo maxay kalo madoobow waxa ka sheekeynayno waa sida marka maanta markii ninkii la dilay nimankii dhulbahante maxay dhahday awalba aayamay lahayne yiraahdaan ninka noo dilo lacagta dil la siiyo iska qaadan lahaayeen awligood lacag un bay dabiyaa jireen waxba u qaban weydeen haddaad aayileedihiin ninka khaniiska aba dili lahaydeen arrinkiisa naga qarin lahaydeen hinda ay milihidin meeshaas iska soo naanaalay aan dheeraan bal qofta ma la dheeraan helaan arko daarooda. Assalaamu calaykum.